السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأدي السلام ولا الله يقول حرن ميل بوجوكتين دمانتينا وأنا جو إفراحي جنال كان نقدا ونستوى إفراحين جنال نقصو دوا ودا نقول عصب تفضلا هذا هو إذا جوكت أدي أمات سنت ومرك لا فيديو عصب ما أنت فيديو قام حكسب سي هاي دعير أو كل عدي قوس سوماليات أو كنا ضلك النرويج qoys oo jimcihi faqiir ahay sabtiga taajir noqday mararka qaar waxa jirto waxyaalo shar moodaysid laakiin oo khayr ku haddaba sidee ku dhacday famil Soomaaliyeed oo ku nool dalka Norway iyagoo jimcihi yaani faqiir waxa ka wada waxba haysanin wax yaani la sheego hanti haysan kadibna dad taajir noqdeen yaani oo lacag fara badan ay aad u soo gashay aabo maxamed jaamac ayaa lahaa familka aabahooda qoysku waa qoys Soomaaliyeed waa aabo iyo hooyo iyo caruurtooda waxay ku nool yihiin dalka Norway qaasatan Oslo ayaan jeclahay waxa ku dhacday guri ay deganaayeen oo dawladda hoose ee leedahay kamuunka wadanka yaani dawladda hoose leedahay deganaayeen gurigaas markii ay deganaayeen shuruud waxa ahayd oo u taalay aabaha iyo kamuunka yaani dawladda hoose oo guriga mas'uulka ka ahayd haddii lacag ayaa jirto oo xadad qofkaas haddii ay soo gasho in uu ka guurayo gurigan oo guri private oo kireysanayo guri yaani private oo qaali oo asal lacagtiisa iska bixinayo haddii laakiin cadadka loogu talagalay gurigaas in uu deganaanayo ka yar ama cadadkaas ay soo galay gurigaas waa guri dawladda ee leedahay yaani oo qiimihiisa aad u jaban yahay oo iska raqiisay aabi ayaa waxa dhacday bishan inay soo gasho lacagta loogu talagalay lacag ka badan adiga 15,000 oo koroonkooda u dhiganta lacag 1,500 oo dollarka amaleeti intaas soo gashay marka lacag ka badan soo gashay bishan lacag ka badan markay soo gashay waa u waceen waxa lagu dhahay lacag ka badan oo soo gashay in guriga aad firaaqaysid waa yaani in aad guurtid waaye oo ka baxdid adi codsi oo dalbaday wuxuu ku dhahay maxaa la dhahaa guriga waan ka baxayaa laakiin xoogaa naxariis hal ii sameeyo corona ayaa jiro degdeg kuma guuri karo ilmana waa haystaa inta guri aaraadsanay ama wax iska bedelayaan corona uu jira hal ii suuga kala ma aysan tashanin waxay sameeyeen askar ay usoo direen ayagoo wax kiis aan u furin wax yaani oo digniin iyo waxbana aan siinin waxay sameeyeen askar ay usoo direen habeenkii jimcihi ayagoo jiifo oo iska hurdo waxa loo soo gala gurigooda askartii soo gashay waxayna ku dhaheen waa ina ka soo baxdaan guriga waxaana la amray guriga ina qufulno oo soo baxdeen cidi yaabi argagax ilmihi qaar way jiifaan waa habeen barafada ay xilli qabow lagu jiraa ilaahay amarkiis waxa jira sharku oo qeyrku noqonayo sheekada muruga ku bilaabana laakiin farxad ayaa u dambeyn doonta marka waxa dhacday wal soo kicii ilmihi askartii waxay dhan anaka amarkaana la soo sii waa ina baxdeen zooizo kori hoos waa ina baxdeen okay askartii ciyaalkii banaanka loo soo saaray qabowgi barafkii tabacdi askartii ayaa waxay ka codsatay familkii in ay raacaan si ay u geeyaan meel ay jiiftaan meesha soo meelaha oo la geeyo dadka homelesska yaani dadka oo nolosha haysanin oo nolosha ka dhacay oo guryaha haysanin oo jidadkii waxaasi oo la ka wado meeshas in la geeyo ee askarta ka codsatay familkii way diideen waxay dhaheen waxna la geenayo ma jirto man idraaceeno meeshasne man iraaceeno man u soconay dhaheen way diideen markay diideen meesha iska tan dariskii ku soo baxay aadi buuq dariskii ku soo baxay dariskii markay ku soo baxeen waa la weydiiyay maxaa dhacay wixii dhacay dariskii u sheegeen dariskii ku argagaxay andan waxaa dhacday gabar oo Norwegian oo wadanka u dhalatay waxay sameysay sawirey ka qaaday Facebook soo dhigtay iyo qisadii cid ku dhacday ee soo qortay waxayna u yaboohday dadka in yaani lacag 50,000 oo krone ee u aruuriyaan yaani 50,000 adi 5,000 camal markaas u dhigmay uma leena 5,000 oo dollar camal u dhigmay inay u aruuriyaan u yaboohday yaani waxay u sameysay codsi dadka qisada dadka ku dhacay dadkii waxay dhacday in lala kaco arintii bulshadii dhan ay ku faafto oo dalka cadaankii wixii dhan adiga isla markii ciidi lacag loo aruuriyay waxaana bilaabatay oo lacagtiba ka sii weynaatay cambaareen loo soo jeediyay dawladii hoose ee gobolkaas dawladii hoose ee gobolkaas cambaareen loo soo jeediyay yaani xitaa waxa laga codsaday inay iscasilaan yaani dhaqan xumada ay ku dhaqmeen dad dhan oo family habeenmado hurdaan xilli corona carad xiranta lagu jiro inay sidaas u sameeyaan ilaahay waxa qadaray gabadhii meesha 50,000 oo dib u dejino cid ay guri ku dagaan inay u yaboohday inay yaani meesha ku qorto in lagu caawiyo isla markii waxa dhacday lacagtii inay 50,000 intee dhaaftay ee 100,000 isku bedesho oo lacagta wadankoodii 100,000 markay isku bedeshay gabadhii markay aragtay lacagta xooliga ee ku socotay kor u socoto
jadwalkii waxay u bedeshay yacni oo guri dib u dejinha loo sameeyay ahay in guri loo gado maadaama lacagta 100,000 marayso saacado kadib waxay noqotay lacagtii milyan iyo 500,000 ayay gaartay lacagtii markay cid dawladii hoose oo shacabka ku kaceen oo lahaa iscasiila wixii dhan ayaa waxay bilaabeen ayakina inay cidi la raadiyaan guri si oo xoogaa oo indhaha shacabka ugu jeesto cidi guri la raadiyay familkii yani meesa fileenin waxaano lacag waxaano yani bubsisadan inay ku dhaceyso way dhacday almuhiim hada cidi guri inay gataan ay raadinayaan inay guri gataan ay raadinaan cidi habeenadow banaanka loo soo saaray barafkaas oo dhacay dartood lacag yar oo xadadkooda oo bishaas oo soo gasho kaliya gaaladan dadka joogana way ogay shilin ee kuugu tala galeen adoo shilin yar oo dheeri ma ogolo wax inay ku safe gareebaan ma ogolo oo ku safe garoobaan inay wax yar oo dheeri ah heshid ma ogolo kugu xisaabtamaan waa cadow xaasida marka maasha Allah tabarakallah waxa marka hore muruga lahayd iyo argagax in family dhan oo jeefo ilmo yar oo jeefo qabowgas barafka loo saaro laakiin qayladii yarta qof ay qaar u tahay ilaahay wuxuu qaar ugu dhigay inay lacagtii ka badan helaan gurigiina guri ka fiican oo ayaga ay leeyihiin ee si free ah ku helaan yacni lacagtaas loo aruuriyay darteed inay guri ku gataan guri ayaga ay leeyihiin waliba maasha Allah tabarakallah marka qayladii yarta qof ay qaar u tahay waxyaalo waxa jira shar moodaysid hadana qaar ku marka waa qiso yaab leh qisana ma aha waa dhacdo adiga wax cusub oo hadda dhacay jumcihii waaye sabtigina jaan lacagta way aruurtay haddana maybe way sii kordhaysaa lacagta wali way socotaa wali 1,500,000 hadda maray in 2 milyan sii gaartay 3 milyan waxba ma aha because hal maalin gudaheeda ee intaasba milyankaas ku aruurtay 1,500,000 adiga oo koronka hadii lacag ahaan la xisaabiyo doolarka waxay noqonay milyanka adi 100,000 waaye oo doolar 100,000 camal oo doolar ku dhowdahay lacagta 100,000 oo doolar ay mareysay inay sii badatan waa laga yaabaa oo wax oo ku sii darsamo maadaama wali ay socoto oo hal maalin gudaheedana waxaas ay ku aruurtay marka maasha Allah tabarakallah ilaahay ayakana u barakeeyo ilaahay sharta oo cadowgana dhamaan umada dhan inta qurbo joogtana ilaahay ka wada qabto meel walba joogan maasha Allah familkaasna wallahi marka hore koowa kana sheekada maxaa yeelay famil dhan oo qurbo joogo qabow loo bixiyo ilmaha haystaan kadibna isku bedesha xaaladda taajirnimo ee guri ayaga ay leeyihiin inay gataan marka waxa jeclaystayna idinkan idin la soo share gareeyo raakaasa share gareeyo qisada waa dhacdo maasha Allah oo ajaa'ibkeeda wadato waa murugo ku bilaabanaysa laakiin farxad ku dhamaanaysa maasha Allah tabarakallah aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashada fiidiyoga waxa inoo ballan videogan video xigo oo faa'iidadiisa wato